kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida waxaynu diiradda aynu ku saari doonaa xiisad dagaal oo ka taagan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu bixiyay mid ka mid ah amaradii ugu dambeeyay oo la xiriira in la weeraro xerada markaasi ay ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku taalo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug xoga dheeraad ah isimada dhaqanka oo dadaalo kala duwan wada iyo barakac ka bilowday xaafadaha qaarkood ee magaalada Gaalkacyo wararkii ugu dambeeyay ayaan sidoo kale diiradda aynu ku saari doonaa qodobada kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya tababar ayaa loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed saraakiil sare oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay la hadleen ciidamadan waxa si guud amar loo siiyay ciidamadan balse waxa laga dardaarmay hal arin waxaynu eegi doonaa qodobka sida gaarka ah ay saraakiishu ugu celceliyeen inay ciidamadu ay ka tigtoonaadaan xoga arintaas la xiriiraya sidoo kale muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaynu sidoo kale aynu idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay saraakiil ciidan ee u diraysaa gobolka Hiiraan kadib fashilkii ku yimid dagaalkii lagu wareegay deegaanka Teedaan iyo sababta ay kooxda Al-Shabaab deegaankan muhiimka ugu yahay iyana sidoo kale waynu idiin soo gudbin doonaa macluumaadka arintaas la xiriira iyo sidoo kale wararka arintaas ku saabsan ayaa sidoo kale muuqaalkan aad ku daawan doontaan marka hore soo dhawaada saaxiibayaal kulan wacan ayaan hawada idinka leenahay haddii aynu ku bilowno Gaalkacyo xiisad colaadeed tii ugu darneyd abid ayaa xilligan ka jirta waxaana qarka u saaran tahay magaaladaasi inuu ka qarxo dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada kale iyagana taabacsan maamul goboleedka Puntland amarro kala duwan ayaa la bixinayaa guutooyin dheeraad ayaa loo dirayaa magaaladaasi odayaasha dhaqanka dadaalla ayay ku bixinayaan barakacna waxa uu ka bilowday qaybo ka mid ah gudaha magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug xogaas oo dhameystiran iyo sidoo kale macluumaadkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa wararku waxa intaas ay ku darayaan in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu amarka madambeysa uu ku bixiyay in la weeraro xerada markaasi lagu magacaabo Istanbul oo ay ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya xeradan ayaana sidoo kale waxa la tilmaamay in ay si gaar ah ugu sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa BSF iyo ciidamo kale oo iyagana markaasi ka amar qaato kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya xogta iyo sidoo kale macluumaadku waxay intaas ay ku daraysaa in amarkan guud ee la bixiyay oo markaasi uu la xiriiro in weeraro culus markaasi lagu qaado BSF ta ku sugan magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug go'aankan uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu daqiiqada ka hor u bixiyayna waxa la xiriirinayaa kadib markii la sheegay in lagu fashiliyay koonfurta magaalada Gaalkacyo hub loo siday waqooyiga magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug Puntland ayaana arintaasi war saxaafadeed kulul ka soo saartay waxaanay si guud markaas u cambaareysay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ku eedeysay in hubkan ay markaas si sharci darro ah ay ugu daabulayso magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug isla markaana xasarad iyo xiisad markaas ay ka abuureyso shacabka iyo sidoo kale maamulka Galmudug ayayna Puntland ugu mahadcelisay in ay ka hortageen qalalaaso markaas la doonayay in waqooyiga magaalada Gaalkacyo laga fuliyay isla markaana tani ay ka dhigan tahay mid si weyn loogu mahadcelinayo looguna mahadnaqayo maamul goboleedka Galmudug go'aanka iyo sidoo kale ay tallaabada ay markaas ay qaadeen dhinaca kalena wararka isla hadda naga soo gaarayo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan in dowlad goboleedka Puntland ay ciidamo fara badan ay dul dhigtay xerada markaasi Istanbul oo ay leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa BSF waxa amarka madambeysa lagu bixiyay in weerar culus markaasi lagu qaado oo dhowr jeer isla markaana la soo afjaro ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee iyaga halkaas ku sugan waxaana si guud markaasi loo amray in aanan marnaba loo ogolaanin lagana aqbalin in ay halkaas ku sii sugnaadaan ciidamadani waxa la tilmaamay misana la shaaciyay in weerarkan uu noqdo mid markaas lagu soo afjaro waxaana goordhow ciidamo kale ay markaas ay gaareen isla magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug waqooyigeeda ciidamadan ayaana sidoo kale durbaba heegan buuxa ayaa la geliyay waxaana sidoo kale heegankooda la xiriirinaya
in ay noqdaan kuwa markaasi u diyaar garoobo wax kasta oo la xiriira in ay qaadaan tallaabadii lagu soo afjari lahaa ciidamadan ku sugan waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Haddaba wararka la xiriiro arrinta Gaalkacyo iyo sidoo kale ciidamada heeganka ku jira oo is horfadhiyo iyo shacabka xaafadda Istanbul agagaarkeeda ka barakacay iyagana sidoo kale waxyaabaha ka soo kordho waynu idila wadaagi doonaa ee markana Baydhabo. ciidamo si gaar ah loo tababaray loona qalabeeyay loona diyaariyay dagaalka guud ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Saraakiil ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa meel fagaara ah waxa ay kula hadleen ciidamadan waxaana si guud markaasi loogu booriyay in ay noqdaan kuwa markaasi u diyaarsan dagaalka guud ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Hal arin ayaana sidoo kale ciidamadan lagu la dardaarmay qodobka ugu weyn oo si weyn markaasi ay saraakiisha ciidamada dowladdu ay ugu celceliyeen ayaana sidoo kale waxa kamid ahaa in ay markaasi ciidamadan ay noqdaan kuwa dhowrsan kuwa markaasi shacabka u adeego kuwa aanan dadka dhibaateynin kuwa aanan dhiiga dadka si fudud markaasi aanan ku banaysanin dhammaan arintan ayaana sidoo kale waxa lagu amray in ay markaasi ay noqoto mid kaliya oo ay ciidamadan ay noqoto in ay dhinacaasi ay ka dhameystirmaan. gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shoote ayaana ciidamadan la hadlay waxaana uu ku celceliyay in iyagu ay in badan maxkamadda ay fadhiyeen ay xukumayeen xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab. waxa uu tilmaamay kuwa ay ciidamadu ay soo qabteen in la xukumay sidoo kalena kuwa wali doorka baxsadka ku ah in iyagana markaasi lala sii dagaalamo isla markaana awood iyo cudud markaasi in la soo geeyo iyaga ayuuna sidoo kale uu sheegay in ay yihiin kuwa markaasi mas'uuliyadda sida gaarka ah u qaadi lahaa isla markaana ay iyagu ay saaran tahay. isaga oo arintaasi ka hadlayna hadaladiisa waxa kamid ahaa sharafay inta maanta inaan idin imaado wax weyn iyo rajo weyn la idinka qaba dadaalkan la idinku bixiyay iyo shaqadan aad qabateen iyo tababarka aad qaateen inay qof Soomaali ah ku badbaado oo ku nabad galo ayaa la idinka rabaa. anaga runtii wax badan waxa maxkamadaha iyo noogu yimaaday shaqo la qabtay oo cadow la dilay iyo halkaas markaas noogu timaado waxaan sameynaynaa dawladda yiraahdo inaan qof oo xeeraaliyaha oo sharci yaqaan ah oo dambiilaha inaad dishaan idin la hubiya inaan idin keeno oo idin kala shaqeeyo. waxa sababta la keenay maanta intaas waa inaan kala hadlo maxaa la yiraahdaa madaxda halkan joogto si shaqadii la qabtay oo dadaalka lagu bixiyay oo la daba galay oo la fuliyay oo niman geesiyaashiina u bararteen oo aadeen inaysan hadhowdo dacwooyin iyo buuq iyo marin habaabin isku bedelin ayaan waxaan diyaarinay inaan qof sharci yaqaan ah oo ka tirsan specialka oo la shaqeeya oo firfaad gareeyo qofka Faysaleen waxa la jiro wax idin Faysaleeya qofka cadowga ah warkan umada ma anfacaya ka qabta idin dhah inaan sameeyno idin kala shaqeeya ayaan hadda u maarnay meeshaani. runtii ciidanku markaas soo galaysid waa doorasho laakiin markaas shaqeynaysid wuu ka duwan yahay hay'adaha kale dawladda oo ama ciidanka aan ahayn sibilka ah marka loo shaqeynayo aad uga duwan yahay maxaa yeelay waqtigaaga dhan dadaalkaaga dhan kartidaada dhan looga baahan yahay meeshan mar waqtiyo kala duwan oo leeyahay waqti waa waqtiga ay xasaraduhu jirin ay nabadda jirto waqtigaas nidaamka xeerarka operationka habraacyada ciidanka ala bartaa markay xasaraduhu jiraan ayaa loo baahan yahay adkaysi iyo dhiiranaan iyo daacadnimo iyo in uu buuqa meesha dagaalka meesha ka dhacay oo san ka qaadin xigmadda oo markasta qof Soomaali ah oo qofku lagu tiirsanaa ahaataa al raba wax badan hadda dadkiina halkan jooga waa kala duwantihiin qof kasta qofka dhinaciisa fadhiya haduu fiiriyo ku deegaan maaha ku qaraabo maaha ku gobol maaha waxa isku keenay oo halkan isku keenay carajiif kale idinka dhigay isku ujeedadan idinka dhigay waxa waaye inaad dalka aad difaacdaan oo dadka difaacdaan oo dhiigiina iyo tabartiina iyo awoodiina lagu soo jeedo waay marka ciidanka waxa ugu horeyso qofka walaalka dhinacaaga fadhiya ka baranaysa wada noolaashay ciidanka waa wada noolaalahaydeen waxa ka baranaysaan kala sareynti waxyaabaha aanan la gorgortamani kamid tahay nidaamka kala sareynta iyo in la ilaaliyo rajada weyn oo la qabana Soomaaliya ay qabtana idinka waay dadkina specialka ah ciidanka gaarka ah rajada ugu weyn oo dalka u qabo ayaa tihiin ciidanka dhammaan rajo laga qabaa sida kuwa gaarka looga qabo ayaa tihiin kala sareynta in la ilaaliyo anshaxa la ilaaliyo oo hogaansanaanta iyo qofka marka uu joogo xerada iyo marka uu xaafadiisa joogaba inuu isku si u hogaansan yahay hal rabaa oo marka la arkayana oo wax fiican sameeynin marka la arkaynin wax xun sameeyna taas la diidaa ciidanka marka uu banaanka joogo qofka oo caadiga ah oo aan ciidanka ahayn ama xitaa qofka ciidanka kala ah
ciidanka isbishalka qof ka tirsan inuu ku daydaal raba oo markay safkan saas loogu jiro kaliya ma ahayn markay xaafadaha joogaan iyo markay baabuurta raacayaan iyo markay caruurta la joogaan iyo waalidka la joogaan in laga dareemo hogaansanaantii iyo disciplinkii iyo akhlaaqda in laga dareemo la rabaa sharaf iyo karaama iyo taharuntii inaan ciidanka gaarka maanta hortaaganahay wax weyn la idinka sugaa waana guuleysanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo dadaalkiina iyo maxay dhiiranaantiina iyo daacadnimadiina marka la isku daro Soomaaliya way guuleysanay waana wada guuleysanaynaa xoogga dalka waa guuleysanaa ciidanka gaarka waa guuleysanaa danab ha guuleysato aad u maasantiin sharaf ay tahay kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shoote sida aad daawaneyseen waxa uu la dardaarmayay ciidamo markaas loo diyaariyay dagaalka guud ee ka dhanka kooxda al-shabaab kuwaas oo si qalabeysan tababaro u qaatay markan hadii aynu eegno dhinaca iyo gobolka Hiiraan kadib fashilkii iyo guushii kooxda al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka istiraatiijiga ay teedaan waxa la canaantay saraakiil ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya si kulul ayaana saraakiishan loogu dhaliilay in ay markaas mas'uuliyadoodii ay gabeen isla markaana ay ku hortagi waayeen sidoo kale ay fashili waayeen weerarkan markaas lagu qaaday deegaanka teedaan oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan si arintan iyo wixii dhacay baaris dheeraad ah loogu sameeyo saraakiil ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana sidoo kale waxa loo diray deegaanka teedaan waxaana sidoo kale duleedkeeda haatan ay ku sugan ciidamadan iyadoona sidoo kale la amray in si degdeg ah markaas loo qabto deegaanka teedaan oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ciidamo fara badan ayaa dhinaca gobolka Galgaduud iyagana ka soo dhaqaaqay kuwaas ayaana si guud loo amray waxaana lagu amray in ay markaas ay noqdaan kuwo teedaan kooxda al-shabaab ka saaro isla markaan u diyaar garoobo sidii loola dagaalami lahaa kooxdan dhibaatooyinka kala duwan ku hayso dadka shacabka isla markaana ciidamadan waxa lagu amray in ay xoreeyaan deegaano iyo sidoo kale degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana istiraatiiji iyadoona sidoo kale dhammaanba markaas loo hoggaansamayo amradan iyo sidoo kale go'aanada markaas la xiriira in lala dagaalamo kooxda al-shabaab oo khatarta ku ah xasiloonida iyo sidoo kale nabadgelyada deegaanada dawlad goboleedka Hiirshabelle iyo sidoo kale dagaalka xilligan ka soconaya gobolka Hiiraan waxa sidoo kale lala xisaabtami doona saraakiil ka tirsan ku militariga Soomaaliya kuwaas oo horkacayay dagaalkii ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee hoostiga degmada Maxaas sidoo markaas ku suura gashay in al-shabaab ay markaas la wareegaan deegaanka istiraatiijiga saraakiil ayaana sidoo kale loo ciqaabi doona teedaan waxay isku xirtaan magaalooyinka Beledweyne Matabaan iyo sidoo kale Maxaas meel istiraatiiji oo muhiim ah ayayna sidoo kale ku taala wadooyin halbowle ah ayayna sidoo kale ay jartay halkaasi waayahay wararka Soomaalida kuwii ugu waaweynaa ayaa inta ku soo gabagabeynaya waxa soo daawateen xiisada colaadeed ee ka taagan magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug oo ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay magaaladaasi ciidamo iyo sidoo kale saraakiilna waxa tababar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed mas'uuliyiin sare oo ugu horeeyo gudoomiye Shoote ayaana sidoo kale ciidamadan u qudbeeyay waxa sidoo kale soo daawateen saraakiil loo diray gobolka Hiiraan kuwaas oo dardar gelinaya dagaalka guud ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxaana sidoo kale dhinaca kale markaas la xisaabtami doona saraakiil ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ee horkacay dagaalkii ka dhacay duleedka deegaanka teedaan iyo qabsashadii kooxda al-shabaab ee deegaankaasi waxyaabaha kale ee ka soo kordho arinta Soomaalida iyo sidoo kale wararka muhiimka ah waxaan idinku soo gudbin doonaa warka ugu horeeyo oo saacado kadib aad daawan doontaan